السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع العقال أصحاب قارية ما أنت موضوعنا وحكو سابسن هاي سيدي أيان كو حقيقين كرا هدفكي أن دكسري أنت بدنا waxaan aragnaa ama adiga kugu dhacday ama aniga igu dhacday inaan inta sanadka bilowgiisa aan qalin iyo warqad qaadano aan qorno ahdaaf aan doonayno in sanadkan aan xaqiijino balse dhamaadka sanadka bisha ugu dambaysa ee sanad kasta waxaa dhaca wax lama filaan ah wax ka duwan wixii aan maleynaynay wax ka fog wixii aan ku taamaynay hadaf aan macquul ahayn inta badan dhalinyaradu marka hadaf dejinta dhan waa ka niyad jawaanba oo waxa arkaysaa qofka hadduu 2 sano kale intuu qalin warqad qatiraa sanadkan waxaan rabaa inaan qabto waa sanadkan waxaan inaan qabto haddana markii bishu dhamaato bisha 12 sanadka la gaaro wixii iyo wax u dhow mid u soo bixi waayaan inuu qalinka iyo warqadda inta la laabo oo yiraahdo mac salaam hadaf dejinta la sheegaya waa bemba wax ka jira male haddaba sidee ku xaqiijin kartaa hadaf aad qoratay ama 1 sano ha ahaado ama 5 sano ha ahaado ama 10 sano ha ahaado horta adduunkan wax aan dhib loo marin lama dheefsado oo dheef kasta dhib baa ka horeeya wax kasta oo horumar laga sameeyo waxay u baahan yihiin dadaal waxay u baahan yihiin xanuunka iyo dhibaatada ka soo wajahda inaad u adkaysatid ma jirto wax dhildhil aad iskaga helaysid mana jirto hadaf inta qoratid asna si sahlan kugu xaqiiqsamayo sheeko aniga saaxiibkan dhex martay ayaan rabaa intaan qodobo u gelin inaan aan ku taabto wax yar aniga saaxiibkay ayaa waxaan aragnay isbuuc dhaweete meel dabaq laga dhisaayo oo shaqo fiican ka socoto runtii wiishashka iyo baabuurta iyo waxa kala socda marka saaxiibku wuxuu igu yiri ninkan wiish iyo alaab wax ku dhisanaya annagana xaaladeena ilaah waa og waxaan ku yiri ma dareemi kartaa ninka maanta wiishka iyo hawshaas u socota ee dabaqa dhisanaya maxaan ka ognahay nolosha uu soo maray xanuunka uu soo maray inuu maanta dabaq dhisto dhibaatadii kaga horeysay iyo wixii uu soo maray dabcan ilaah waa og waxay u badan tahay laakiin 80% wax dheel ku yimid inaysan ahayn qodobkeena koowaad marka ee sababa in aan xaqiijin weyno ahdaafta aan degsanay waxa weeye number 1 waxaan ka bilownaa hadaf dejinta been iskula sheekaysi maxaan ka wadaa been iskula sheekaysi hadaf aan macquul ahayn inaan degsano waxaan xasuustaa hadda ka hor inaan dejiyay hadaf ah in sanadkan aan shaqaalanimada dhan ka baxo runtii waa hadaf aad iyo aad cajiib u ah waa hadaf muhiim ah oo la xaqiijin karo laakiin waxa ka horeysa inta la xaqiijin horta hadafkani sidee suurtagal ku yahay wax kasta oo hadafkan lagu xaqiijin karo ma awooda inaad samaysid tusaale kale waxaa ka mid noqon kara in qofku uu yiraahdo in uu sanadkan qoro buug caan ah oo bulshada ka gadma oo best seller ah oo waddanka dhan maxaa la yiraahdaa laga kala iibsado asagoon weligiis xitaa laga yaabo inuu Facebook post maahan wax kale uusan qorin ama uusan buug akhrin runtii waa hadaf sida ku suurtagalaya ay rabto hawl dheeriya marka number 1 waxaan bilownaa in aan hadaf aan macquul ahayn aan dejino oo markaan hadafka dejinayno isma weydiino hadafkan aan raba inaan gaaro sidee ayuu suurtagal ku yahay maxaa caqabadaha oo la kulmaya anigu garaadkayga iyo maskaxdayda iyo aqoontayda iyo dhaqaalahayga markii loo fiiriyo hadafkan sidee ayaan u xaqiijin karaa intaas kama fiirin qalin iyo warqad inta qorno waxaan qornaa sanadkan waa inaan waxaas qabanaa qodobka labaad ee sababa inaan ku fashilano ama aan xaqiijin weyn ahdaaftaan dejino waxaa ka mid ah diirad saari la'aan ma sarata marka qaar marka sanadku dhamaado oo aad dib u fiirisid ahdaaftii wixii ku qornaa
inay wixii aad qoratay iyo waxa sanadkan aad qabatay ay kaaf iyo kala dheeri kala noqdaan oo waxyaabihii kuu qornaa inta hilmaantay aad waxyaabo kale aad qabsatay taas waxaa leedahay diirad saari la'aan oo maxaa weeye qofku maalinta hadafka uu qoro ayaaba ugu dambeysayba in uu hadafkii diiradda saaro uu ka shaqeeyo oo maalin kasta uu dhaqaajiyo Dr. Benjamin Hardy nin la yiraahdo wuxuu leeyahay guushu ma ahan wax adag kaliya waxay u baahan tahay in qofku uu 20 tilaabo isku hal jiha u qaado wuxuu leeyahay taas cagsiga dadku maxay sameeyaan hal tilaabo ayay wixii dadku 20 jiho u qaada runtii waa hadal aad iyo aad cajiib ah inaad hal tilaabo 20 jiha u qaadid meesha laga rabay inaad 20 tilaabo hal jiha u qaadid marka waxa keenaya diirad saari la'aanta hadafku waa qoraynaa laakiin kuma dhaqmayno oo maalin kasta markii waagu uu noo bariyo ma dhahayno hadafkeennii sanadkan ahaa maxaa maanta ka qabsanaya isbuucan ka qabsanaya bishan ka qabsanaya iyo xageebu maraya maxaa ii hirgalay maxaa ii dhiman waxaan rabaa inaad maalinle noloshaada saas kula socdo hadafka aad u adeegsatay inuu saas kula lugeynayo maalin kasta isbuuc kasta aad wax ka qabanaysid bil kasta aad wax ka qabanaysid qofka mar waa si wax ka noqon karaan laakiin waxaa la rabaa mar kasta inaad hadafkii wax ka qabanaysid oo yoomiyi uu ku daba socdo laakiin haddaa inta hadaf degsatid xagga ka baxdid shaqo kala qabsatid iska seexatid hawlo kala aad ciyaaraha iska daawatid hadafkaas adeeg ayaa la rabaa meeshuu ku dambeeyo hadhow inaad soo sheegtid qodobka saddexaad waxaa weeye ka go'naansho la'aan dadku waxay isku qaldaan waxa la yiraahdo qofka wax uu danaynayo iyo ka go'naansho inta badan qofku waxyaabaha uu wajaho go'aanka oo kama dambaysta ah inta badan waxyaabahaas waa fulaan inta badan waxyaabaha qofku uu wajaho go'aan oo ah waxaan inuu ka go'aanta inuu qabto inta badan waa fulaan laakiin markii qofku wax inuu danaynayo anu hadda waxaan danaynayaa inaan double master noqdo waxaan danaynayaa inaan waxaas qabto waa danayntaadi marka waxa soo wajihi doona waxyaabo kale oo aad danaynaysid in ciyaar daawati waa danaynaysaa inaad taleefanka maanta oo Facebook iskaga jirto waa danaynaysaa inaad iska nasatid oo aad waa danaynaysaa inaadan shaqooyin ku dhibaayo ku bushgareena aad qaban waa danaynaysaa laakiin go'aankii mashka maqan ka go'naansho la'aan waa qodobada keena in aan hadafkeeni xaqiijin weyno qodobada kale waxaa ka mid ah cudurdaar iyo dib u dhigasho runtii waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa oo aan aad iyo aad u arki lahaa intaasoo dhaqaatiir ayaa dalkeena ka furan dhakhtarka cudur hebel laakiin cudurro qarsoon baa jira bulshadeena haysta haddii aan arki lahaa dhakhtar ku takhasusay in dadka cudurdaar ka daaweeyo iyo dib u dhigashada runtii waxay ahaan lahayd arrin aad iyo aad loogu farxo waxyaabaha keen inaan wax xaqiijin weyno waxaa ka mid ah cudurdaar runtii in hadaf la xaqiijiyaa wax sahlan maaha marka maxaa dhacaya markuu qofku uu hadafka isku dayo inuu dhaqan geliyo waxyaabo badan ayaa soo wajahaya culaysyo badan ayaa soo wajahaya dabcan meelo badan oo iska tilaabi karin ayuu arkaya intii marka uu maankiisa iyo maskaxdiisa iskugu geyn lahaa sidii uu kaga dhabayn lahaa arrintan waxaa imaanaysa cudurdaar baa imaanaya waxaa imaanaysa in qofku iska dhaadhiciyo in arrintan aysan ahayn arrin sahlan oo ay tahay arrin uusan qaban karin meeshaas marka maxaa ka dhalanaya cudurdaar in qofku cudurdaarto yiraahdo maya waa ku qaldamay waxa la sameyn karaa maaha dib u dhigashadu waxa weeye qofku inuu isku qanciyo hawshan adoo inta ka caqli badan oo inta ka maal badan oo maxaa la yiraahdaa ka firfircoon ayaad qaban doontaa hadda arrin aad qaban kartid maaha bal sanadkan dib u dhig bishan dib u dhig maanta dib u dhig waa cudurdaar iyo dib u dhigasho qodob kale waxaa ka mid ah oo sababa in aan xaqiijin weyno hadafkeena ka cabsashada guuldarrada inta badan qof hadaf xaqiijiyo dabcan qof guul gaar inaad sanadkan 2 hadaf oo aad leedahay aa xaqiijis ama 3 hadaf oo aad leedahay aa xaqiijis adiga waxay kaaga dhigan tahay guul laakiin ka waran ka cabsashada guuldarrada
oo waxaad ka cabsanaysaa in aad arrintan haddii aad samays ku guuldareysatid taasna waxay kugu sababaysaa in aad arrinta dhamma joojisid marka waxyaabaha sababa in aan hadafkeena xaqiijin weyn waxaa ka mid ah inaan ka baqno inaan guuldareysanayno ogowna inaad guuldareysataa ceeb maaha dhibna maaha inaad guuldareysataa waxay ka fiican tahay in aadan waxba bilaabinba oo guuldarooyin isxixiga daab kan wax ku guuldareysa waxba ka baranaysa kan ku xiga dab guuldareysa waxba ka baranaysa guuldarooyin isxixiga ayaa guusha lagu gaaraa waa macna ciyaalo in leh soo dhawaada ila muuqaalka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh